roobabkii ka daayay 24 saac ee la soo dhaafay magaalada Muqdisho ayaa waxay dhibaato xoogan u geysteen barakacayaasha ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waatan wariyaheena Qaali Axmed Macalin warbixinta inoo faahfaahinaysa. magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya labadii habeen ee la soo dhaafay waxaa ka soconayay roobab lixaad leh kuwaas oo saameeyay dadka danyarta gaar ahaan barakacayaasha Soomaaliyeed ee ku nool xerooyinka waaweyn ee ku yaala caasimadda Muqdisho. TV-ga caalamiga ee Samsad xaruntiisa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu booqday qaar ka mid ah xerooyinka ay ku nool yihiin dadkaasi barakacayaashaasi oo wax badan kaga ogaado saameynta uu ku reebtay roobabkaasi maadaama ay yihiin dad jilicsan marka loo fiiriyo bulshada inteeda kale kuwaasi oo aan awoodin meel ay ka galaan dhibicda roobka iyo qabowga faraha badan leh oo dushooda ku da'aya habeen iyo maalin. marka aad dhex maraysa aqalada qoysaskan ay ku nool yihiin waxaad arkaysaa guryo markiiba ka samaysan bac iyo cooshado kaas oo aan awood badan u lahayn inuu celiyo dhibicda iyo roobka qabowga faraha badan leh kuwaas oo dadka barakacayaasha ee ku sugan magaalada Muqdisho martii uu noqday in habeen iyo maalin dushooda uu ku da'o. qaar ka mid ah dadkan ayaa la hadlay TV-ga caalamiga ee Samsad waxaana ay ka warbixinayeen xaaladooda iyo sida roobkii da'ay labadii maalin ee la soo dhaafay uu u saameeyay. saddex maalmood ayaa roob nagu da'ay dhibaatana noo dheer ilmahayna iyo ananka uu banaanka taaganahay buushaan ku jirnaa buushkii bac uma haysano dhibaato weyn ayaa meesha roobka saddex maalinaas noo do'i bacna ma haysano xalaana oo darneedi dhibaatadii xalana qabati waxnaaga darneed ma lahayn walaalahey dadweynaha sharafta laatihi anaka kaamku waxaan deganay oo bismillah dhaayo saddex maalina roobna dili gaaj noo dheer dhibaato noo dheer anakii awlaadeen ayaa xalib biyaha dhaxdiis aalna soo dhax bixiyay. dhinaca kale roobabkan waxay saameyn adag ay ku yeesheen wadooyin badan oo halbowlow ah kuwaas oo saameeyay dhammaanba isku socodka dadka iyo gaadiidka xaafado badan oo kamid ah magaalada Muqdisho waxaana qaar ka mid ah darawaladaasi ay ka cabanayaan dhibaatooyinka ay kala kulmaan xilliyada roobabka ay wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho. Qaali Axmed, Samsad, Muqdisho.